qofka muslimka ee marka bisha tani waa bil aad u khayr badan waa bil qofka muslimkii maca allahi jumlahu kula baac mushtaraynayo waa bil aad dhalin karto dee dhowr iyo 80 sannadood baad habeen dhalin kartaa dhowr iyo 80 sannadood cimriga wixii aad cibaado samayn kari lahayd ayaa habeen ka mid ah ramadaantaad samayn karaysaa idan waa bil aan waqtiga intiisa kale kuula mid ahayn saa daraadeed qofka muslimkii uu diyaar garoobaya bishan weynadeeda waxaa kuu tilmaamaya laba nin oo saxaabada ka mid ah ayaa soo hijrooday dabeetana طلحة بن عبيد الله وصحابي اللي ورن شري بي لدغه لبدا نين way jihaad galeen markii ay jihaad galeen ayaa midi shahiidnimo qaatay midkii kale wala nin oo soo islaamnimadoodu fiicnaatay oo nabiga la dagaal galay mid baa dagaaladii shahiid ku noqday kii kalena sanad kale sii noolaaday bishii ku xigtay ramadaanna waa joogo waa dabeetana si caadi u geeriyooday طلحة بن عبيد الله صحابي اللي ورن شري أيها وحو يري ريان أركي رياد السديدة قد تكون حقا وقد تكون خزعبلات يعني النبي عليه الصلاة والسلام حقوت المامية النبدي وحكا هاري وحكا ميدا محي الرؤية الصالحة مركا رياض ودبنا والنقطة باطل يوسكا دبنا والنقطة صحابي نقول رياضي wuxuu ku riyooday iyadoo jannadii ay galayaan dabeetana saddexdayadaan ahayn buu leeyahay aniga iyo labadii nin kale kii dambeed dhintay ee jihaadka ku dhimanin ayaa la yidhi soo gal kii baa la horreysiyo horgalay dabeetana kii shahiidka ahaa baa ka daba galay أنا أسيري قالوا هذه ولي ما يقاري وقت قاقبال يجيبوا marka uu soo baraarugay riyadii baa faaftay nabiga loo sheegay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku yiri maxaa ula yaabaysaan waxa ilaahay rasuulkiisiiyo labada ninkii aanu islahayn dawaa dadaal badan iyo shahiidoobay kii kala jannada ka horgalay dabeetana nabiga wuxuu ku yiri alaysa qad makatha hada ba'dahu bisana oo kan miyaanu sanadkan nolol dambeyn buu nabigu ku yiri markaasaa la yidhi haa waa ka nolol dambeeyey oo miyaanu ramadaantii dambe isagu soo gaadhin buu nabigu ku yidhi haye waa soo gaadhay baa la yidhi oo sooma soomin oo ma salaadin oo masaajidkan kuma tukanaynin sanad buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaa la yidhi haa famaa baynahumaa abcadu mima bayna alsamaa'i waalardi buu nabigu ku yidhi xadiidka kan ibnu maaja soo warinaya culimadana saxiixa ku tilmaamayaan wuxuu nabigu leeyahay labadooda ajarkooda inta u dhaxaysa cirkiya dhulka inta u dhaxaysa in leeg baa u dhaxaysa yani ninkii shahiidnimada qaatay sanadkii hore kani muxuu kaga badiyey acmaashii uu samaystay sanadkii uu noolaa ay kamid ahayd uu nabigu leeyahay warninku miyaanu ramadaan soo gaadhin aanu kaasi sii maqnaa soo kani ma joogin buu nabigu leeyahay oo ramadaan dama tukanayno ma soomayno waa kan sida awgeed حديث بدن بين النبي كحنا والنبي يقول يقف رمضان صمه إيمانا واحتصابا يسقوا إيمان هي احتصاب يعني مؤمنا بالله سدبا ورميسا ومخلصا كل انت عمل كأصون كاسمية غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبك سهر الله ضعف أبو النبي وأنك الصامة